asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee udiinhayo dunida TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani oo weerar ku qaadaya xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda si xisbigiisa ka ah uu ugu guuleysto doorashada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso iyo xiisad ka taagan magaalada madaxda gobolka Bari ee Boosaaso agaasimihii hore ee Niisa Fahad Yaasiin oo la shaaciyay in uu dhaqaale ku bixiyay hurinta dagaal beeleedyo ka dhacay aaga Goldogob iyo sidoo kale deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud si loo fashiliyo dagaalka ka dhanka al-shabaab Somaliland oo shaaca ka qaaday in al-shabaab horle ay gudaha u galeen degmada Laascaanood iyo deegaanada ku dhow iyada oo diyaarisay ciidamo ay sheegtay inay argagixisada ka xoreyn doonaan gobolka Sool sida ay ku dooday qodobada ay kuwa kale aad ku daawan doontaan wararka dunida TV oo diyaar garoobay warmaystiran isu soo nool haboon daawadayaal markale waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida TV fadlan daawade si aad mar walba ula socoto wararka warbixinaha iyo xogaha degdega ee dunida TV nagu soo biir oo subscribe saaro channelkan mahadsanid aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena aan idinku sheegay baa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa lagu eedeeyay inuu colaad ka horinayo magaalada madaxda gobolka Bari ee Boosaaso magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa qarka u saaran inay mar kale gasho walaac iyo xaalad kacsanaan kadib doonista madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanaya ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dani uu ku adkaysanayo inuu qasab kula soo baxo hogaanka degmada Boosaaso ama maamulka degmada wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa mar kale soo saartay habraaca doorashada hogaanka degmooyinka ee ku soo baxay doorashadii lagu muransanaa iyada oo ay iska diideen ururada kula socday ururka Dani ee ka ah doorashooyinkii hubaysnaa ee Puntland ka dhacay inta badan xubnaha golaha deegaanka ee Boosaaso oo gaaraya 22 xubnood ayaa iska diiday ka qaybgalka waxa ay ugu yeereen boobka doorashada mid kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee ku soo baxay doorashadii lagu muransanaa ee ururada qayb kamid ah ay qaadaceen ayaa waxa uu sheegay in aanay rabin in Boosaaso ay qalalaasa gasho sida darteedna aysan diyaar u ahayn inay qayb ka noqdaan doorashada uu Dani ku shubanayo ee lagu qabanayo magaalada Boosaaso taa oo uu ku tilmaamay mid hubaysan oo mucaaradka lagu cabsigelinayo wasiirka arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa ayaa u muuqda ilaa iyo hadda mid iska indhatiraya dhacdooyinka banaanka u soo baxaya iyada oo doorashada madaxtinimada Puntland ay ka harsan tahay wax ka yar 3 bilood hase yeeshee Saciid Cabdilaahi Dani madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa doonaya in uu awood kula soo baxo gudoomiyaha degmada Boosaaso iyo ku-xigeenkiisa isla markaana uu ciidan iyo cudud military ku maqooniyo xubnaha mucaaradka ah ee ka aragti duwan ee fadhigoodu yahay degmada Boosaaso 2021 waxay martigelisay dagaalo u dhiig ku daatay oo u dhaxeeyay ciidanka Dani taabacsan iyo kuwa daacadda u ah agaasimaha hay'adda BSF ee Puntland Maxamuud Cismaan Cabdilaahi Diyaano wali waxa taagan xiisada u dhaxaysa mucaaradka iyo Dani waxaana ay labada dhinac sidoo kale hore ugu dagaalameen magaalada madaxda Puntland ee Garowe oo dagaal uu dhiig ku daatay uu ku dhaxmaray Saciid Dani iyo mucaaradka waxaana mar kale muuqata qatarta laga qabo isku dhac dhaxmaray Saciid Dani iyo mucaaradka oo ka dhaca magaalada madaxda gobolka Bari ee Boosaaso iyadoo saacadii iyo maalmihiina dhaafay ay dagaal sokeeye ka holcayeen qaybo kamid ah gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa wararka soo baxay waxay sheegayaan in xubnaha diidan dagaalka iyo gulufka ay dawladdu ku qaaday al-shabaab ay hurinayaan colaad sokeeye oo dhexmarta beelaha degagal Mudug iyo sidoo kale xitaa Puntland agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Niisa Fahad Yaasiin marna soo noqday la taliyaha farmaajo ayaa la sheegay in uu dhaqaale ku bixiyay hurinta colaad beeleedyada ka dhacay aaga Goldogob iyo sidoo kale deegaanka xanan buure ee gobolka Galgaduud Fahad Yaasiin ayaa doonaya in si buuxda uu fashilmo gulufka dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu hadda dhaqaale cusub ku bixinayaa sidii madaxa la isugu galin lahaa beelaha degagal Mudug isla markaana looga mashquuli lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab aaga degmada Goldogob waxa saacadihii la soo dhaafay ka socday dagaal beeleed u dhaxeeya laba beelood oo walaalo ah oo halka wada daga kaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac inkastoo ciidamada isku dhafka ee dawladda federaalka Soomaaliya ee ka howlgala gaalkacyo oo ku baxay dagaalkaasi ay kala dhex galeen labada beelood ee dagaalamay haddana dagaalkaasi ayaa ku bilowday si kadis ama lama filaan kadib markii ay maleeshiya deegaanka ah ku duuleen dad kale oo xoolo dhaqato ah taasi oo keentay in labada dhinac uu dagaal qaraar dhexmaro Fahad Yaasiin iyo xulfadiisa ayaa doonaya in dagaal beeleedyada ka socda aaga Goldogob iyo sidoo kale xanan buure ay kalifaan in ciidamada beelaha ay ku sugan furimaha hore ay ka soo baxaan dagaalka oo ay halka u jeestaan
taasi oo laga hortagay una muuqata mid ay durba fashilisay dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhuusamareeb u jooga muddo ka badan 2 bilood sidii uu u guuleysan lahaa halganka dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab wuxuuna madaxweynuhu hore uga digay cid kasta oo doonaysa fashilinta dagaalkan dhawaanahan waxaa soo baxayay dhinacyo xulufo la Fahad Yaasiin iyo Farmaajo oo ku howlan fashilinta dagaalka ka dhanka al-shabaab iyadoo Somaliland ay ciidamo fara badan ku diyaarisay deegaanka og ee gobolka Sool ayay xukuumadda Hargeysa mar kale ku dhawaaqday in xubnaha argagixiso ah oo ka soo firxaday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay soo galeen gobolka Sool gaar ahaan Laascaanood Somaliland oo horey xoogaga deegaanka ee SSC Qaatuma iyo sidoo kale ciidamada la safan ee Puntland ugu eedeysay inay garabsanayaan xubnaha argagixiso oo ragga dagaalka qaybta ka ah qaarkood ay Somaliland soo bandhigtay cadeymo ay ku hayso iyo inay ahaayeen xubno ka tirsan argagixisada al-shabaab ay mar kale xukuumadda Hargeysa shaacisay in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ka dagaalama koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay soo gaareen magaalada Laascaanood iyo deegaanada kale ee gobolka Sool si ay halkaasi fariisimo uga sameystaan Somaliland waxay ku dooday in al-shabaab ay doonayaan la wareegista guud ahaan gobolka Sool taasina aanay aqbali doonin iyadoo oo saacadihii la soo dhaafay ay taagneyd xiisada u dhaxaysa Somaliland iyo xoogaga SSC shalay ayay ahayd markii madaafiic lagu weeraray sida la sheegay deegaanka og oo ciidanka Somaliland ay fariisin ku leeyihiin waxaana ay Somaliland ku dooday in wali kooxaha ka soo horjeeda aanay ka suulin hurinta colaad balse diyaar ay u yihiin ciidanka militariga Somaliland inay arrinta jawaab ka bixiyaan oo ay dib ugu laabtaan Goojacade Laascaano iyo guud ahaan gobolka Sool sida ay xukuumadda Hargeysa ku dooday ciidanka militariga Somaliland iyo kuwa aan ciidamada kamid ahayn oo u badan dhalinyaro laga soo aruuriyay deegaanada Somaliland ayaa loo diyaariyay ka qaybgalka duulaanka cusub ee Somaliland ay ku qaadayso deegaanada ka maqan gacanteeda ee ku yaala gobolka Sool waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanaysan Dunida TV